iyo dulmigana la baabi'iyo. dulmiga waxaa ka mid ah in dadka lagu yaso dhalashada, nasabka, la hayb sooco, la xaqiro bisabab abtirkiisa iyo nasabkiisa. waa dulmi weyn, waana jaahiliyo, waana wax diinta islaamka aada uga fog. sidaas daraaddeed baa diinta islaamku markii ugu horreysay timid mabda'a ay ku dhawaaqadeen wax weeyaan dadku waa isku mid, waana siman yihiin. waxa ay ku kala fiicnaan karaanna waa caqiidada iyo camalka wey. ruuxa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dadnimadiisa yuu dadka kaga fiicaya, laakiin abtir kagama fiicna, nasabna kagama fiicna, waajahna kagama fiicna, midabna kagama fiicna. wuxuu kaga fiican yahay waa akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisa iyo dadnimadiisa. allah tabaaraka wa tacaala wuxu uhi yaa ayuha annaas dadow innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa, waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig xaggood. hal hooye hal aabaad ka soo jeedaan, aadam iyo xawaa. cid laga abuuray ma jiro, nuur laga abuuray. dhammaantiin dhoobaa laydinka abuuray, aabihiin dhoobaa lagaga abuuray, idinkuna aadam baa laydinka abuuray kulligii. wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila, hal aabbe iyo hooye markaad laydinka abuuray kadib baa waxaa laydinka dhigay qabiilooyin iyo qaramo iyo shacbiyaa laydinka dhigay. maxaa laydinka dhigay? litacaarafuu inaad isgarataan. waa reer hebel, waa qabiil hebel, waa qaran hebel, halkaasay degaan, halkaasay ka soo jeedaan. litacaaruf. markaasaa rabbi wuxuu ka dambaysiiyey asalka lagu kala fiican yaho dadku ku kala qiimo badan yihiin adduuniya aakhiraba waxa weeye ina akramakum cinda allahi atqaakum. ilaahay agtiisa waxaa idinku karaamo badan oo idinku sharaf badan midka idinku cabsi badan oo idinku taqo badan, ka idinku diin fiican, idinku dadnimo fiican, kaasaa ilaahay agtiisa idinku karaamo badan. amaa nasab iyo sharaf maya. nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh khudbuu ka jeediyey dadka hortiisa, hadal buuna dad ummadiisa kula hadlay. wardadow buu nabigu uri sal alla alay wasalam, wardadow rabbigiin waa mid, aabihiinna waa mid, waa aadam. carabiga ruuxa kalen carabiga ahayn kagama fadli badna inuu carabiga. midka aan carabiga ahayn oo cajamiguna cajaminimo kagama fadli badna midka carabiga. midka cas kama fadli badna midka madow, ka madowna kama fadli badna midka cas, ilaa alla ka cabsi iyo diin iyo akhlaaq weeye. markaasaa nebigu wuxuu akriyay aayadan ina akramakum cinda allahi atqaakum. ilaahay agtiisa waxaa idinku karaamo badan midka idinku cabsi badan. markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam alaa hal ballaqtu, war ma gaadhsiiyey? war fariintii ilaahay ii soo dhiibaya xilkii ma guto ma idin soo gaadhsiiyey? haabay dhaheen rasuulka ilaahay. markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam faliyuballiq ashaahidu algaa'ib, isgaadhsiiya warkaa isaga. hadalkaa ninba ruuxa hadda ila joogay maqlaya, ka meesha ka maqan kaad la kulantaba gaadhsii fariintaa iyada. dadku waa isku mid, mana kala fadli badna, abtirku kuma kala fadli badna, laakiin alla ka cabsi iyo diin iyo akhlaaq lagu kala fadli badaya. fariintaa isgaadhsiiya buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. diinta islaamku markii ugu horreysay timidba mabaadi'dan jaahiliyada ku salaysan way dumisay. dadku isxaqiraan, in laysyaso, in layshayb sooco, in la yidhahdo lama kala guursado, in dadka qaarkood muxuu ahay la dulmiyo. shareecadu maalinkay timid baa arrinkaa isagaa way dumisay oo xididadii u siibtay. saxaabadiidna nin ka mida sal alla alay wasalam abu dar la yidhaha, abu dar algifaari radia allahu tacala canhu ardaa, saxaabi jaliil u ahaa. nin saxaabada ka miday murmeen oo hadal dhex maray, way caytameen, lagaadaa dhex martay. markaasuu wuxuu ku caayay hooyadii. ninkana hooyadii baa waxay ahayd carab ma ahayna cajam bay ahayd, islaan madow baa dhashay. markaasaa caytanka iyo caytamaya wuxuu ku yidhi kii hooyadii madoobaydow ina hooye madoobay. dabcan hooyadii way madowdahay, midabkeedu waa madow, laakiin midabkii madoobaa markay noqoto in laysku xaqiro laysku yaso,
macno kalu samaynaya ninkii isaga ahayd hooyadiisii madoobeyd lagu caayay nebigu u yimi sal alla alay wasalam wuxuu rasuulka ilaahay ow abu dar baa caayay hooyada iyo madowguna ay ku caayay nebigu sal alla alay wasalam abu dar wuxuu ku yidhi abu darow ninka ma hooyadii baad ku caydo oo ku ceebaysa markaasaa nebigu wuxuu sal alla alay wasalam abu darow waxaa kugu jira oo dhexdaada ku jira arrin jaahiliyadii islaamku baabi'iyey ka mida baa weli kugu jirta abu dar wuxuu yihi oo rasuulka ilaahay ow ninku wuu icaay ninkii ragga caayana dee hooyadii aabihii waa la caay markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam abu darow jaahiliya kugu jirta weli maxaa hooyadii madowgeeda ku gaadhsiiyey maxaa midabka hooyadii ku gaadhsiiyey maxaa dadka inaad midab ku cayda gaadhsiiyey ma artin baa la isku caya ma midab baa lagu kala fiicayay ma weji iyo qurux baa lagu kala fiicayay ma abtir baa lagu kala fiicayay maxaad hooyadii ugu cayay markaasaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay ow ma da-dan aan joogo da-dan intaasaan muslim ahaa oo iimaan lahaa oo muddo dheer baan adduunka soo joogay ma da-dan iyo waktigana weli jaahiliya igu jirtaa nebigu wuxuu yihi sal alla alayh wasalam haa da-dan aad tahay baa weli waxaa kugu jirta jaahiliya buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh limaada lianna ruuxa isu arka inuu dadka ka wey qabiilka isu arka inuu dadka ka sito dadka fiican yahay kaga fiican yahay abtir kaga fiican yahay waa qabiil jaahiliya ay ku jirto wa shaksiga sidaa qabana waa shaksi jaahiliya ku jirta wey waxaa ku jirta qayb ka mida jaahiliyadii islaamku baabi'iyey islaamku dadkiisa wuxuu ku tarbiyeeyey waxaad dadka kaga fiicnaan karto waa waxaad adigu shaqaysan karto waa waxaad adigu dooran karto waa waxaad samayn karto kaasaa dadka kaa fiicnayn kara ama ku liidi kara oo ah ilaahay diintiisa akhlaaqda wanaagsan caqiidada wanaagsan dhaqanka wanaagsan dadnimadaada taasaa ama wax kaa dhigta ama dib ku rida laakiin nasabkaagu meel kuma geli abtirna meel kuma geli waxna kuma noqoto macnahaasuu nabigu sharxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aanka kariimkuna uu saleeyey asalkaasaa muslimiintii lagu tarbiyeyey sida hadda aynu nahay si ka daran bay ahaan jirteen carabtii nebi maxamed laga soo saaray sal alla alay wasalam qabaa'il dhan oo waxaa jiray lahayb soco oo la yaso oo aan laga guursanin oo loo weelduwo ayaa jiri jiray ayagoo sidaasoo weliba caado weynaatay oo xididaysatay ay ahayd ayay diintani timid quluubtoodii bay la hadashay way qancisay jaahiliyadii bay burburisay hal mar bay ka dhaqaaqeen sidaasay ahaan jireen mar baa day diinta qaataan diin islaam baan xambaarsanaya jaahiliyadiina waa ku garab wadanayaa ma ahayn marmar inuu khalad ka dhaco qaar ka mida waa dhici jirta laakiin islaamku waa dumiyey markuu dumiyeyna isbeddel weyn baa dhacay dadkii la yasi jiray la xaqiri jiray ayaa waxaa la bilaabay marka in la isdhexgalo in la kala guursado in la sharfo leanna ilaahay diintan uu ku sharfo ina allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayaqacu bihi aakhariin kuwa sharaf lahaa oo magac lahaana dhulkaa lagu jiiyo caqiida xumadoodii diin xumadoodii gaalnimadooda kuwa la yasi jiroo la xaqiri jirayna cirkaasaa la geyay leanna caqiidadoodii iyo sharaftoodii iyo diintoodii iyo akhlaaqdoodaa keentay sababta keentayna waa diintooda diintani markay timid isbeddel baa mujtamacii ku dhacay gabdhihii ka soo jeeday qoysaska ugu sharaf badan carab quraysh waxaa guursaday rag afrikaan waxaa guursaday dad asalkooda addoommo ahaan jireen oo addoonnimo laga xoreeyey oo dadkii la yasi jiray ah ayaa guursaday maalan gabadha la yidhahda zaynaba binti jaxsh gabadh waxay ahayd ka dhalatay quraysh ka dhalatay wamaca dalika nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh eedadiina way dhashay nabi maxamed eedadiina way dhashay waree bani haashim ah oo quraysh qoyskii ugu sharaf bandaya ugu bad hooyada dhankeeda iyo aabba labadaba qoysaskii ugu sharaf badnaa way carabta gabadha iyada ah waxaa guursaday zayd ibnu xaarisa
وأسل في سؤال دون هانجري قول لك حري أيا بوسد مدة استقبل مركو فري كذب من النبي محمد بوسد وقصة القرآن كبوس الجلي ورب تبارك وتعالى من وشك في سورة الأحزاب صحابي الكريه مدى عيسى القرآن كوكيمد وزيد بن حارثة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد مركو دنتي سكت أما يستي زينب أو فري نبي محمد وكوكور النبي عليه تبارك وتعالى تضمن السماء كركضوا إلهي نمسوا كوري النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيا هنا هوين إذا كلية ضمر كالنبي كم صلى الله عليه وسلم إلهي بكركسوا مهريه النبي صلى الله عليه وسلم وقول عقل عليه لأن حق ربي ما لم يشوفه وإن أقول ثاني جرتي ضمر كالنبي صلى الله عليه وسلم وحبي جرتي أهل كينا إذن مهريه أبياشين ولدين بإذن كيد مهريه لكن أريق الله بأن مهريه بدين جرتي gabadhii sida ay waxa guursaday oo qabi jiray oo muddo la noolaa nin adoonnimo asalkiisu ay ka soo jeedo mawla min al-mawali sidoo kale